تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، daqiiqadaha hore waxaynu qaadan doonaa axkaam alciid calaa dawi sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. axkaamta ciidda iyo sida uu nebigu inoogu jideeyey si ciiddeennu si saxa ay u dhacdo ajrigeennana aynu u helo. axkaam alciid ilaa 12 qodob ayaynu soo sardin doonaa ama istabagelin doonaa insha allahu. qodobka u horeeya waxa weeyaan ciiddani xukumkeeda waxa wey sunna mise waa faral. culimada islaamku 3 qowl bay leeyihin. qolo yidhi waa waajib iyo qolo yidhi waa waajib kifaaya oo dadkao dhan bay si guud ugu waajibtay haddii qaybi ogto way ka dhici, iyo qolo yidhi sunna mu-akada wey, inay sunna adag tahay baana ayaa maaragtay loo badan yahay. daliilkana waafaqsan xadiid saxiixa baa wuxuu sheegayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam nin baa u yimid oo wuxuu yidhi salaad maxaa laygu leeyahay oo 5 salaadood buu nebigu sheegay. wuxuu yidhi miyaa salaad kaloo faral laygu leeyahay? maya buu nebigu uhi ilaa an tatatawaca, inaad sunno gudata mooyaane. warkii wuu caddeeyey faral kale inaanu jirin. xigmadda ku jirta waa maxay? salaada ciiddu waa farxaddii sanadlaha ahayd ee 2 jeer aynu farxaynay haddaynu nahay muslimiinta. nebigu calayhi salaatu wasalaam madiina wuxuu tegay iyagoo 2 ciidood leh. nayruushka ciiddan la ydhaha iyaday mid meherajaan la ydhaha. waar maxay ahayn labadan iyo dee waanu lahayn bay idhaanoo ciidaynoo ahaayeen. 2 ka khayr badan buu ilaahay idinku bedelay buu nebigu ku uhi calayhi salaatu wasalaam, oo ah ciidulfidri wa ciiduladxa. warkaasi halkaasu ku cadiyey. markaa maalin waliba cid waliba maalmo ay faraxdaabay leedahay buu rasuulku. haadaa ciiduna ahla alislaam. dadka muslimiinta haddaynu ciiddeenni waa tan. marka taasina waxay tilmaamaysaa xigmaddu waa farxad lagu faraxsan yahay. 2 faraloo la dhammaystiray. faradkii xajka markii la dhammaystiray waa ciidu caraf. faradkii ramadaan markii la dhammaystirayna waa ciidulfitr. waktiga salaadan ciidda sunnaha marka loo noqdo way yaro kala horreynayeenoo ciidulfitr ayaa dambaynaysa, ciiduladxaana way horreynaysa. gaabkaa waxaa loo sameeyey ciidulfitri si sakaatufidriga loo soo bixiyo oo sakaatufidriga horreynaya. ciidduna salaaduna way dambaynaysa. ciiduladxaana salaada la qadimayaa, waxaa la dambaysiinayaa neefkii la gowracayay. marka farqigaasaa jira. waktigeedu waa laga bilaabo markay qoraxdu si fiican dhulka uga soo go'do ilaa bartanka intaanay gaadhin. haddii ay dhacdoba maalintaa hore in la tukan waayo qofku aanu tukanin oo bishii aanu aragoo mar dambaa la arkay, maalinka labaad baa la tukanayaa barqadii. way dhacdayna waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtu nebiga waxay u sheegeen intay safar ka yimaadeen shalay inay bishii arkeen. haddaba ha la ciida buuhi, maantana ha la yska afuro, berrina mina subaxda ciidda ha la tukado. meesha lagu tukanayo waa qodobka 4aad. waxa fiican inay noqoto fagaaro bannaan oo muslimku isku arko awooddooda iyo salaantooda iyo tahniyadooda. masaajidka waxaa ka fiican bannaanka. masaajidada haddii lagu tukadana way ansaxaysa ila alxaram almaki. xaramka maka isaga waxa fadli badan masjidka in lagu tukado. aadaabta salaadan marka loo baxaya waxa fiican in la sii maydho sidoo cabdilaahi bnu cumar samayn jiray isagoo nebiga ka arkay calayhi salaatu wasalaam. dhar wanaagsan in la xidho kuwa caddi ay ka mid yihiin oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xidhan jiray badlad xamuuradaysan ama casaan fudud ah. casaan riban maaha, waa casaan fudud oo khafiif ah. xamuuradda 2 go' xamuurad lebu gashadeen bayaynu odhan jirnay berigii hore. cumar binu khadaabna wuxuu arkay dhar wanaagsanoo markaasuu nebiga ku yidhi tan maad iibsan doontaa si aad ciidaha iyo ugu xidhato jumcada iyo wufuudda.
sunnayaasha waxaa ka mida ciidulfitr oo tan berritaa insha allah in wax la sii cuno oo weliba nebigu wuxuu sii cuni jiray xabado timir ah maalinta laakiin ciidul adxaa marka uu soo noqdaa unbuu cuni jiray waxaa fiican ciidaha in takbiir la akhriyo aayaddaasay u daliishadaan culimmadu ka warramaysa aayadaha soomka ku dhex jirta ee ilaahay uhi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun ilaahay wuxuu doonayaa tirada inaad dhammaystirtaan ramadaan oo idaan waxba ka kala tegin takbiirtana akhridaan kadibna mahadnaqdaan mahadnaqii baanu ka mid yahay waxaa la qalaya iyo waxaa la bixinaya takbiirta codku kor ugu qaadi jiray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yuhallil wayukabir waa xadiidkaasi waa xasan takbiirta uu akhri jiray allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd takbiir intaasi ansaxday buu akhri jiray wixii ziyaadaadana laa ba'as qodobka shanaad ama aan idhaahna aadaabta waxaa ka mida in dumarka iyo caruurta iyo ay soo baxaanoo khayrka ay ka qayb qaataan sida uu tilmaamaya xadiidka ay warinaysa umu caiya ee saxiixa oo waa lasoo wada saaraya bay leedahay bulshada islaamka bannaankay usoo wada baxayaan si ay yashhadna alkhayra wa dacwata almuslimiin khayrkay xaadirayaan iyo rabbi bariga muslimiinta naxariis baa kusoo degaysa goobtan ilaahay daraaddii halka la ysugu yimi aadaabta waxaa ka mida in la socdo ayaa ka fiican gaadhiga in la fuulo haddii aan duruufi kalifaynin oo masaafadu aanay fogeyn rasuulku wuu sii socon jiray waanu soo socon jiray maashiyan isagoo soconaya bay leeyihin asxaabtu xadiidkaasina waa xasan salaadan iyada ah aadaabteeda waxaa ka mida inaan sunno ka horeeya iyo sunno ka dambeeya midna loo samaynin lam yusalli qablaha walaa bacdaha ibnu cabaas wuxuu leeyahy xadiidkii bukhaari salaaddii dee iyadii baaba sunno ah marka sunno ka horeeyana ma tukan rasuulku mid ka dambeeyna ma tukan qofku hadduu meesha ciida yimaado u iska fadhiisan adaabteeda waxaa ka mida inaanay lahayn adaan iyo aqiimid midnaba ibnu cabaas iyo jaabir ibnu cabdilaahi saasay soo warinayaan salaadan looma adaami jirin ciidda loomana aqiimi jirin ila waa in la bartaa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam kayfiyadda loo tukanayo haddii keligaaba ay ku qabsato ilan jamacna waa loo tukada haddii jamci ku dhaafana keligaa waa tukan kartaa waa labadii ragcadood ee sunnaha ahaa ee lagu akhriyayey suuradihii jumcaha lagu akhriyayoo kale sabixisme iyo halataag oo ragcadda horena ay leedahay 7 allahu akbarood ta labaadna leedahay 5 allahu akbarood marka ta hore waxaa laga reebayaa ta lagu xidho ta labaadna waxaa ka dheeraada tasiikiciddu waa ka siyaado sidaasaana ka ansaxday cabdillaahi bni cumar waana lahu xukmu rafci qodobka tobnaad waxa weeyaan salaadani waxay leedahay khudbad ka dambaysa oo fiiha takhiir listimaaciha qofku inuu dhegaystiyo inuu iskaga tagaba xaq buu leeyahay oo waanu dhegaysan karaa siduu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waanu ka tegi karaa markaa khudbadaasina waa khudbad keliya bay leeyihin inta suganta isagoo nebigu cagaa dhulka ku hayoo taaganna wuu akhrii jiray mimber lama dhigi jirin mimberna lama dhigaynin caguhunbuu isku taagayaa hal khudbadna wuu akhrii jiray hadda way fiicantahy dadku si ay u fahmaan inuu af carabiga iyo af soomaali isugu daro qofku sidan imikaba khudbadda aynu isugu darno oo dad badan baa intanuu taagan yahay aamiin u leh bal u fiirsada aamiintaasay hayaan isaguna ayuhannaas buu leeyahay maa yacrifuuna alcarabiya carabidu garanay akhriyaya ma garanayaan marka inuu ducaynayay moodaya ninkan meesha iska taagan markaa way fiicantahy in af carabi iyo af soomaali la iskugu daro aan lana dheerayn qodobka 11aad aan idhaahna intaynaan kaa dhaafin way jiraan riwaayooyin soo arooro 2 khudbadood sheegaya wayse daciif qodobka 11aad tahniyad baa fiican oo sunno ah tahniyaddana asxaabtii nebi moxamed qayb ka mida waxaa ka ansaxday inay odhan jireen taqabal allahu mina wa minkum ilaahay annagiiyo idinkaba haynaga aqbala camalka wanaagsan qodobka 12aad haddii ay dhacdo maalin ciidah iyo maalin jumcaha inay kulmaan labadaba miyaa la tukanayaa ma ciiddaa la tukanayaa ma jumcaha la tukanayaa maxaa la yeelayaa
culimada qaarkood waxa ay leeyihiin maalinkaasoo kale markay arrintu sidaa u dhacdo jumcadii lama tukanayo qowlna wuxuu leeyahay waa la tukanayaa jumcadii iyada ciiddii la tukay laakiin ta laga hadlayaa waa jumcadii lama tukanayo waa la kala dhaqaajinaya qolana waxay leeyihiin ma ciiddiina waa la tukanaya jumcadiina waa la tukanaya sidaasaanay culimada islaamku u badan yihin jumhuurulculamaa cidda loo yaqaano oo waxay daliishanayaan dee naskii ilaahay uhi idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascaw ilaa dikri illaah haddii loo aadaamo jumcadii u degdega waa adilada ku soo arooray jumcada waajibnimadeeda labada xadiida yidhi kala dhaqaajiyana waxay ku fasireen qaarkood inay labada xadiid daciif yihiin bay sheegeen qolyaha qaarkood oo sheegaya inay dee xadiidku sugmayna waxay ku fasireen waxa weeye qofkii imaamka aan ahayna laakiin ciidda xaadira oo dadkii bay kala qaadeen imaamka iyo qofkii aan saaka ciidda tukanin jumcadii way tukanayaan laakiin qofkii isagu subaxdii ciidda tukaday ee aan imaamka ahayn ikhtiyaar buu leeyay inuu ka maqnaado saasay ku jamciyeen almuhim waa jumcadiina waa tukan ciiddiina waa tukan axkaamta ciidda 12 qodob ayaynu ku soo ururinaynaa waxaanaynu ilaahay ka sugaynaa subxaanahu watacaala camal baynu soo qabannay waynu soo dadaalnay inaynu camalkeenna ilaahay uu ka dhigo midaynu janno kaga iibsanno rabbanaa subxaanahu watacaala oo waxaynu usii dhowaanaynaa farxaddii yarayd farxaddaa yaroo ah tii galabtii iyo ta ciidda farxaddii weynaydna ilaahay baynu ka sugaynaa oo ah yowma almacaad maalinkaynu isaga ishortaagno siduu nebiguba tilmaamay lisaa'imi farxataani yafraxuhumaa farxatu cinda fidrih wa farxatu cinda liqaa'i rabbi marka uu afurayana uu farxaya markuu ilaahay la kulmayana uu farxaya marka waxaa muhiima inaynu sii wadno sidaynu hore isugu waaninay cibaadada oo aynaan ka caajisin haddii ay tahay soomka sunnaha ah ee shuwaal iyo soomkii isniinta iyo soomankii kale aynu soo sharaxnay cibaadadii iyo dikrigiina halkii ka sii wadno qaybta inta dambe in sha allahu tacaala su-aalahaynu siin doonaa wahada ma aquluhu astaqfiru اllah